ku gaaraysaa aakhiro iyo adduunba waad ku liibaanaysaa haddii aad u qumto diinta rabbi subxaanahu wa tacaala oo u istaagto oo aad dhahdo daaciya noqonaya dadkan gaarsiinaya fadli aad iyo aad weyn ay leedahay qawluhu tacaala waltakum minkum ummatan yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani lmunkar dadka ugu yeerayaan khayrka waxayna amrayaan macruufka waxayna ka reebayaan munkarka ulaa'ika kuwaasi humul muflixuuna waa kuwa liibaaneen sifaadka laga rabo oo laga doonayo qofka waxa weeye inuu qofka daaciga noqdo mid aragti dheer leh macnaheedu yahay waa inuu noqdo mid indha waxa uu doonayo waa inuu qofka uu leeyahay horta waxan uu faafinayo aqoon iyo cilmi inuu leeyahay shuruud dacwa ila Allah شروط الدعوة إلى الله وحاوية أن يكون مخلصا لله تعالى وإني أهاتا دعوة الله سبحانه وتعالى أو برحت ريسو وأدوغر رادينيسو أجر الله سبحانه وتعالى أذنا إسلهين استوتس أسمي أما قف محلي جري هلوغوه وداعي iyo halagu faaniyo waxaas inay ka ahayn ayaa muhiim ah aad daaci mar hada isku magacaaday aad waxaada dhan uu noqdo khaalisan lillah waa inuu yahay qofka qof cilmi leh waxaan uu sheegayo qofka waa inuu cilmi u lahaada waa inuu cilmi u leeyahay قل نبي الله وحد كل هذه كان سبيلي ووددي أدعو أو يرى إلى الله ألا حقيسة على بصيرة وعلى حجة هي دليل إبرهان أنا ومن اتبعني وسبحان الله ألا يا حمان كنزان وما أنا أنقنا مئه من المشركين الله سبحانه وتعالى وحلو ناجي لو أداجي